barnaamijkeena maanta ee xogta daahsoon waxaan ku soo qaadan doonaa su'aal laga yaabo inaad marar badan isweydiisay balse wadnahaagu kuu diiday inaad soo bandhigto. waa xiriirka ka dhexeeya ururka al-shabaab iyo maamulka Somaliland iyo qaar ka tirsan ganacsatada maamulkaasi. sida caadada u ah ururka al-shabaab waxay beegsadaan cid walba oo ka hadasha arrimahooda, xitaa ma dhaafaan hooyada qudaarta ku iibinaysa suuqa. waana sababta keentay inaysan dadku ka hadal waxyaabo badan oo ay dharaar walba isweydiiyaan. al-shabaab ama al-shayaadiin waa urur argagixiso dhiig miirata wax suuqyo badani ka geystay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. ururkani ayaa soo ifbaxay wixii ka dambeeyay sanadkii 2003 waana fikir xag jira oo ka soo dhexbaxay xarakaadkii islaamiga ee waagaasi ka hor dhismay sida xarakada Islaax, Tajamucul Islaami iyo waliba xarakaadkii takfiiriga ah ee markaa ka jiray qaybo kamid ah wadanka Soomaaliya. haddaba maanta wuxuu barnaamijkeena tooshka ku qaban doonaa xiriirka qarsoodiga ee ka dhexeeya ururka al-shabaab iyo maamulka Somaliland. kooxdan dhiig miiratada waxay ku soo koobtay howlgalkeeda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka dariska nalaha sida Kenya oo ay weerar badan ka geysatay. haddaba waxa halkaasi ka soo baxay su'aalo badan oo jawaabo u baahan. waa maxay gaalada iyo mushrikiinta waxay ku sheegaan ee ku nool koonfurta Soomaaliya oo aan ku nooleen waqooyiga? waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaanba cadowgaagu duurkiyo hadduu dooga cawskiyo dareemada ka badan yahay adiguna dab baa tahay. digashidan hadduu yahay adna daad socdaa tahay. damal adag hadduu yahay adna danab dhacaa tahay. baaruudda duushiyo dubba culus hadduu yahay derbi soo ceshaa tahay. iyadoo labadii mar ee u dambeysay ay al-shabaab hoggaankeeda hayeen Axmed Godone oo u dhashay beesha Isaaq ee Carab iyo hadda uu hayo ilma habreedkii Abu Ubayda oo u dhashay beesha Dir balse ay qaraabo dhow yihiin Godone. intaan barnaamijkan ku jirnay waxaan soo helnay magaca rasmiga ee hogaamiyaha waqtigan al-shabaab iyo xiriirka dhow ee qaraabo ee kala dhaxeeya hogaamiyihii hore ee Godone. ninkani wuxuu magaciisa runta yahay Mahad Cumar Cabdikariin wuxuuna isticmaalaa magacyo badan sida Abu Ubayda oo ah wiilkiisa curadka ah, Axmed Dheere oo xarakada al-shabaab looga dhex yaqiinay iyo magaca Axmed Diiriye. Mahad Cumar Cabdikariin oo hadda la baxay magaca Axmed Cumar waxay ilma habreed yihiin Axmed Cabdi oo Maxamuud Godone. Axmed Godone hooyadiisa waxaa la yiraahdaa Cibaado Warsame halka Mahad Cumar hooyadiisana ay tahay Faadumo Warsame. Godone iyo Mahad waxaa dhalay laba gabdhood oo ahaan isku xigay waxaana weyn Mahad hooyadiisa. Cibaado Warsame iyo Faadumo Warsame waxay qabiil ahaan u dhasheen beesha Isaaq gaar ahaan Garxajis, Habar Yoonis gaar ahaan raaska reer Sugalle. haddaba ragga u qaabilsan Somaliland xiriirka al-shabaab kala dhaxeeya ayaa isku dayay kadib markii uu dhintay Godone inay booskiisa ku bedelaan qof aan isaga ka dheereen oo xiriirkooda wanaagsan sii xoojiya. 2 sano ka hor warbixin ay soo saareen sirdoonka Mareykanka xarunta uu ku leeyahay Djibouti waxay soo bandhigeen shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda Siilaanyo oo xiriir toosan la lahaa ururka al-shabaab. waana ragga la aaminsan yahay inay isku xireen al-shabaab iyo Somaliland. bal marka hore ila daawada warbixintan. dhinaca sirdoonka qaabilsan oo ka tirsan hay'adda CIA-da dalka Mareykanka oo in muddo ahba saldhigoodu ahaa dalka Djibouti ayaa warbixino ay u gudbiyeen dawladaha Djibouti iyo Itoobiya ku sheegay in xubno miisaan ku leh maamulka madaxweynaha Somaliland ee Siilaanyo ay halbowle u yihiin dhaqdhaqaaqyada iyo isu socodka kooxaha argagixisada ah ee guud ahaanba ka wadaan geeska Afrika. sida xoogahani ay tibaaxayaan mas'uuliyiintani ka tirsan hay'adda CIA-da ayaa aaminsan in xubno ilaa heer wasiir ka tirsan xukuumadda Siilaanyo ay halbowle dhaqaale iyo mid farsamaba u yihiin kooxo diimoodyo xaruntoodu tahay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ku teedsan dhulka ay xarakada al-shabaab gacanta ku hayso ee dalka Soomaaliya. xogtani waxa ay tilmaamaysaa in wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Samaale, wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan, wasiirka diinta iyo waqaafta Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed, wasiirka hawlaha guud Cabdirasaaq Khaliif Axmed Dawdar, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdulqaadir Cabdiraxmaan, wasiir ku-xigeenka ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanku ay si toos ah ula xidhiidhaan xarakada al-shabaab iyo sidoo kale ururo diimeedyo kale oo ay ka mid yihiin al-Islaax iyo ururka al-Muttaxida. xogtu waxa ay iftiiminaysaa in hay'adaha sirdoonka dalalka reer galbeedku ay sanadii 2011 waraysi ay la yeesheen wasiirka diinta iyo waqaafta maamulka Somaliland
Sheekh Khaliil oo markaasi wiil uu dhalay uu ka mid ahaa dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. Xogtani waxa ay kaloo iftiiminaysaa in wasiirka maaliyadda maamulkaasi Cabdicasiis Maxamed Samaale oo wax ku bartay dalka Yemen isla markaana muddo badan noloshiisa dalka Yemen ku soo qaatay in uu ka mid yahay guddiga sare ee fulinta iyo hoggaanka ururka Al-Islaax ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Xogtu waxa ay iftiiminaysaa in Cabdicasiis Samaale uu ururkaasi u fidiyo taageero dhaqaale, waxayna xogtu intaasi ku daraysaa in ururka Al-Islaax ay bixiyaan waamiirta iyo go'aamada siyaasiga ah ee Cabdicasiis Samaale ku talo qaato, iyagoo ahaa xoogii dabada ka riixayay inuu dhowaan ku dhawaaqo inuu u tartamayo doorashada madaxtinimada xisbiga Kulmiye ee maamulka Somaliland. Xogtani waxay iftiiminaysaa in wasiir Xirsi Cali Xaaji Xasan Xirsi Toorile uu isagu ka mid ahaa ururka Al-Shabaab bilowgiisii oo dhammaadkii 2004 lagaga dhawaaqay gudaha dalka Soomaaliya. Waxay xogtani iftiiminaysaa in wasiir Xirsi uu ka mid ahaa xubnaha u qaabilsan ururka Al-Shabaab shaqaalaysiinta dhalinyarada, waxaana uu si weyn uga shaqeeyay in xitaa xubno qoyskiisa ahi ay ka qayb noqdaan ururka Al-Shabaab, iyadoo xogtu ay xustay wiil uu adeer u yahay oo uu dhalay nin ay walaalo yihiin oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Garweyne in uu ka mid ahaa dhalinyaradii uu Xirsi sanadii 2004 ilaa 2007 ku biiriyay kooxda Al-Shabaab. Sanadkii 2007 ayaa ciidamada sirdoonka Ingiriiska oo kaashanaya kuwa maamulka Somaliland waxa ay Xirsi Toorile ku qabteen meel duleedka hawd kaga beegan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, iyadoo waqtigaasi lala qabtay gawaadhi uu kurka ka jaray iyo sidoo kale hub uu u waday kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta buraleyda Galgala ee maamulka Puntland. Waxaa sidoo kale waqtiga lagu qabtay telefoonada gacanta nooca loo yaqaan Traya Mobile oo la shaqeeya satellite-ka, kaasi oo ahaa kii sahlay in la qabto Xirsi Toorile. Xogtu waxa ay iftiiminaysaa in Xirsi Toorile iyo Axmed Godane ay aqoon badan u dhaxaysay wixii u dhaxeeyay 1995 ilaa 2003 oo uu ka baxay Axmed Godane magaalada Hargeysa. Xogtu waxa ay iftiiminaysaa in wasiir ku-xigeenka ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir oo ka mid ahaa ragga ay aadka isugu dhow yihiin wasiirka madaxtooyadu uu isaguna ka mid yahay dadka ay afkaaraha wadaagaan, isla markaana ay marar badan khadka teleefanka kaga wada sheekaysteen arrimahani ku lug leh falalka argagixiso. haddaba xiriirka maamulkaasi kala dhexeeya Al-Shabaab ayaan ahayn mid qarsoon, waxaana jirtay mas'uuliyiin badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo arrinkani ka hadlay. أرجع سوماليلاند عيالها الحمليين أو بارك إن بدن الحمليين إن بدن إنسان جوده أنا بدي هالكان جوده وكما كنت كده وانا يعني إن بدن وكمية سوماليلاند في مادين مركي دورانا برحائي أرجيسية بالبرائي دورنا إنت بول طيارو لأنه ذي كسر السنة marka waxaan isleeyahay anu Somaliland التلاتين سنوات iyo التلاتين سنوات shabaabkuna inay iskawar qabaan baan aaminsana ay arintaa maxaad u cadeynaysaa sidaa aaminsana saas waaye laakiin waxaa la yidhi inaad lasha koriyo adigaa u aaniyo axdi madaxan xabashada lagu aaminayo waxaa waaye ninkii nima kaa koriya ayayaa cuni doona. sidoo kale maamulka Puntland ayaa dhowr mar sheegay xiriirka qarsoodiga ee Somaliland kala dhaxayso Al-Shabaab. dawladda Puntland waxa ay u sheegaysaa shacabka Puntland ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in xalay oo bisha June ahayd 2018 saqdi dhexe inay argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka Hargeysa oo ay hogaaminayaan saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka Hargeysa. saraakiishaas oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo sarkaalka lagu magacaabo Maxamed Cabdilaahi Battaar kana tirsan guutada 8aad ee maamulka Hargeysa una dhashay beesha Isaaq Habarjaalo, isla markaana degan magaalada Ceergaabo. xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga Balle Khadar ee Puntland. waxaana si gooniya maamulka Puntland kaga sii yaabiyay oo shakigooda sare u qaaday sababta ay Al-Shabaab oo ku sugan agagaarka buurta Galgala ay u weeraraan Puntland balse aysan u weerarin Somaliland, iyadoo ay u fududahay inay weeraraan Somaliland oo iyadu wax ilaalaha aan dhigin xuduudaasi.
hogaamiyaha al-shabaab ee buuraha galgala waa nin lagu magacaabay cabdalle sandaal oo ay al-shabaab ugu yeerto abu xamsa isla markaana ka soo jeeda beesha habar jecel ee isaaq oo qaraabo hoose ay yihiin madaxweynihii hore ee Somaliland Silaayo. buuraha galgala ee dhinaca Somaliland xiga waa kuwa furan oo haba yaraatee ma jirto wax ciidan Somaliland oo ilaala ka halka. sidoo kale magaalada Burco iyo nawaaxigeeda saadka iyo socotadaba way u furan yihiin halka dhinaca Puntland ay ku gadaaman yihiin ciidamo tiro badan oo har iyo habeen ilaala ka halkaasi iyadoo ay saas tahayna mar walba waxay u soo gudbaan dhinaca Puntland oo ay dad masaakiin ah ku laayaan. waxaa halkaasi ka soo baxaya su'aal ah waa maxay sababta aysan maamulka Somaliland uga cabsi qabin ururka al-shabaab oo la ogyahay dhibaatada ay ka geysteen dhammaan dalalka geeska Afrika oo ay siin jirin maanta dal ay dhaafeen. hadduusan isfahan dhexdooda jirin maxay ciidamo u dhigi waayeen xuduudda buurta galgala oo ay al-shabaab joogaan. arrimahani oo dhan waxay muujinayaan xiriirka qaar ka tirsan mas'uuliyiinta Somaliland kala dhaxayso ururka al-shabaab.